And at that time, Pelham police officer came to the side and said, "Hey, yo, you okay?" I said, "It's gonna sound real crazy, but I'm actually heading to work on my first day of the job." And at that time, a Pelham police officer came to the side and said, markaas ama xilligaasna sarkaal booliis ee magaalada Pelham ayaa wuxuu imaaday dhinaca side waa dhinac and said, "How are you? Are you okay?" Wuxuuna igu yiri sidee tahay ma fiican tahay? It gonna sound real crazy. Waxay u muuqan doontaa waali, but I'm actually heading to work. Laakiin dhab ahaantii waxaan u socdaa shaqada. Head markii laga soo tago inay macnaheedu madax tahay sidoo kale macno kalena way yeelan kartaa markii ficil ahaan loo isticmaalayo. Waxaa lagu bedeli karaa ficilka go oo ah tegid. I'm going to walk, I'm heading to walk. Labadaba waa isku macno. On my first day of the job. Maalintaydii koowaad ee shaqada. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with me iyo video cusub. Videoga maanta idin wada waa Steve. Fadlan inta videoga bilaaban karo dad nagu cusubtahay nagu sabiir channelka subscribe dhe videoga la garay oo share garay asxaabtaada jecelina bartaan qod Englishka. Haddana bilaawno. Everybody, we're back with Walter Carr, a really inspiring young man who walked 20 miles to make it to his first day of work. Everybody, we're back with Walter Carr. Qof walba waxaan la soo laabanay Walter Carr. Markaan waxay u muuqataa inay qadar xayeysiin aadeen ay ka soo laabteen. A really inspiring young man. Wiil yar oo dhalinyaro ah oo dhiirigeliye ah. Who walked 20 miles to make it to his first day of work. Kaasoo lugeeyay 20 mile si uu u tago shaqadiisa maalintii ugu horeysay shaqada. Maraykanka marka masaafo dhow laga hadlayo waxay isticmaalaan mile, anagana waxaan isticmaalnaa kilometer. Make iyo it markay israacaan waxay la macno tahay markaan arrive ama tagid. Salaam waxaa dhihi kartaa, did you make it home? Guriga ma tagtay? Ama haddii aad tahay dadka filmaanta fiirsada waxaa laga yaabaa inaad filmaanta ku aragta marka ugu dambeysa inay dhahayaan we made it. Yani waa guulaysanay meesha rabna waa imaanay. We made it. What motivated you to walk instead of calling off your first date? What motivated you to walk? Maxaa kugu dhiirigeliyay inaad lugaysid? Walk waa socosho ama lugaysan waa dhihi kartaa. Instead of calling off your first day. Bedelkii aad kansali lahayd maalintaadii ugu horeysay. Call off, kansalid. Isku day inaad jumladan ka dhigtid English. Boosku waxa uu kansalay kulankii. I just got laid off my job for UPS, so I had just got laid off my job for UPS. Waxaa layga soo saaray shaqadeedii aan u shaqaynay UPS. UPS waa shirkad magaceed. waxaa rabo inaan sharxo farqiga u dhexeeya lay off iyo fire oo aan daraad soo baranay. Farqiga kaliya u dhexeeya waxay tahay lay off markii qofka lagu sameynayo ama shaqada laga casilayo ma ahan khalad uu asiga sameeyey ee kambaniga ayaa wuxuu gaarayaa go'aan ayagoo ku saleynayaan in masalan mushaarkii ay bixi waayeen ama shirkadda ay dib u habeen isku sameynayso kale shaqaalaha qaar ay fasaxayso. Shaqaalaha noocaas lagu fasaxa waxaa loo yaqaanaa lay off aa lagu sameeyey lay off ee ma ahan khalad uu asiga geystay. Halka fire ee tahay qofkan khalad uu geystay wax loo diru sameyn waayo ama waxaa loo dirin uu sameeyey. Shaqada laga buriyo markaas. farqiga u dhexeeya waa intaas. put in job applications and nobody would give me a call back. So I put in job applications. Waxaa dirsaday codsiyo shaqo and nobody would give me a call back. Qofna dib iima soo wicin. And I was like, somebody just give me that chance I can show them who I am. And the moving company called me and said, "Hey, you hired," and I was so grateful for that. And I was just like, if somebody give me that chance, I can show them who I am. And I was just like, waxaan dhahay, if somebody just give me that chance, I can show them who I am. Haddii uu qof kaliya isiinaa fursadaas waxaan tusi karaa qofka aan ahay. And the mover company called me and said, mover company waxa waaye shirkada dadka ka caawiya markay guurayaan yani alaabta u raraan. Shirkad noocaas ay soo wacday waxayna iigu tiri, "Hey, you hired. Hey, waa lagu shaqaaleysiiyey." And I was so grateful for that. Taasna aad ugu mahad celinay. My car broke down, my ride bailed on me, and I was like, My car broke down. Gaariga iga halaaway. My ride bailed on me. Ride sidoo kale hore usoo sharaxnay waxaa waaye qofka lift in la siiyo meel laga qaado meel la geeyo. Liftigii aan sugayna wuu igu jaray. Bail on waxaa waaye qof markuu ku dhaw waxa kuu sameynaa uu kuu sameyn waayo kale wuu kugu jara soo maahan. Bail on waa noocaas. I was thinking I can get there. I got 2 legs and 2 feet. I have a way to get there. I was thinking I can get there. Waxaa ku fikiraya aniga buu tagi karaa xagga. I got 2 legs and 2 feet. Waxaa leeyahay 2 lugood iyo 2 cago. Xagaha qofka aan aqaan waa qaybta hoose lugta ee lagu socdo. I have a way to get there. Waxaa leeyahay wadda aan xag ku tagi karo. So I'm supposed to be there at 7:45 in the morning. I left at 11:40 p.m. that night. At 4 o'clock in the morning, right before you get on the highway. Other side, take a 2-minute rest. So I was supposed to be there at 7:45 in the morning. waxaa liiga rabay in halkaas joogo 7:45 subaxnimo ama 1:45 subaxnimo sida anaga dhahno. I was supposed to. waxaa liiga rabay. I left at 11:40 p.m. that night. waxaa baxay 11:40 habeenimo habeenkaas at 4 o'clock in the morning markii la maraya 4 subaxnimo ama 10 saac subaxnimo right before you get on the highway. intaadan highway ku dhicin ama aadan gelin wax yar ka hor I decided to take a 2-minute rest. waxaa go'aansaday inaan qaato nasiino 2 daqiiqo ah
And at that time, Pelham police officer came to the side and said, "Hey, yo, you okay?" I said, "It's gonna sound real crazy, but I'm actually heading to work on my first day of the job." And at that time, a Pelham police officer came to the side and said, markaas ama xilligaasna sarkaal booliis ee magaalada Pelham ayaa wuxuu imaaday dhinaca side waa dhinac and said, "How are you? Are you okay?" Wuxuuna igu yiri sidee tahay ma fiican tahay? It gonna sound real crazy. Waxay u muuqan doontaa waali, but I'm actually heading to work. Laakiin dhab ahaantii waxaan u socdaa shaqada. Head markii laga soo tago inay macnaheedu madax tahay sidoo kale macno kalena way yeelan kartaa markii ficil ahaan loo isticmaalayo. Waxaa lagu bedeli karaa ficilka go oo ah tegid. I'm going to walk, I'm heading to walk. Labadaba waa isku macno. On my first day of the job. Maalintaydii koowaad ee shaqada. So what happened next? So, what happened next? Kadib maxaa dhacay? His friend that knew me in the area came pick me up and drove me the rest of the few miles. His friend that knew of me in the area. Saaxiibkiis yani sargaalka saaxiibkiis that knew of me in the area. Kaasoo wax ka ogaa arrintayda in the area oo agaarkaas joogay came pick me up and drove me the rest of the few miles. Ayaa imaaday oo isoo qaaday. Pick up waa qaadid. Picked me up ayaa isoo qaaday and drove me the rest of the few miles. Wuxuuna i kaxeeyay magaaladii ugu waday mileski yaraa ee ii harsanaa. Mile waa meesha anaga kilomitrka ka isticmaalno kale. Intii yaraadu dhineedna asigaas ii waday gaariga ku qaaday. And at 6:30 in the morning, we arrived at the homeowner's house, and he went ahead and told them it was okay for me to come in and be this early. And at 6:30 in the morning, we arrived at the homeowner's house. 6 barkii subaxnimo ama 12 saac bar waxaa imaanay milkiilaha gurigiisa, yani guriga maalintaas guurayo ka wada. And he went ahead and checked. Uuna sii watay wuxuu hubiyey, and it was okay for me to come in and be this early. Caadiyan ii ahayd inaan gudaha soo galo oo aan sidan usoo dhaqsado. Yani sarkaalkii asigu ku wada gaariga wuxuu hubiyey, yani cidda uu weydiinaya haddii shaqaalahan 12 saac bar la ogolay inuu guriga soo galay in kale wayna u ogolaadeen. So the homeowner, Jenny, is here. Okay, so you're the homeowner. What'd you think when you opened the door and you found out what had happened to Walter? Homeowner waa milkiilaha guriga. Jenny magaceeda waaye is here ayaa halkan joogta. So the homeowner Jenny is here. Milkiilaha guriga oo ah Jenny ayaa inta joogta. What did you think when you opened the door and found out what had happened to Walter? Maxaa ku fikirtay markii aad albaabka furtay oo aad ogaatay wixii ku dhacay Walter? Found out waa bastigii find out oo ah ogaansho. To be honest, my eyes just fill with tears. At 6:30 in the morning to hear that story, you just loved him right away. To be honest, my eyes just filled with tears. Haddii aan daacad kula hadlo, ilin ayaa indhahayga soo buuxisay. Yani ilin ayaa igu soo taagmatay. At 6:30 in the morning to hear that story, 6 barkii subaxnimo ama 12 saac bar inaad maqashid sheekadaas, you just loved him right away. Waad iska jeclaanaysaa. I mean, he just a fine young man, you can tell. And, being a mom, I knew he was tired. I said, "Hey, why don't you go on upstairs and just take a little rest before we start the move? And that way you can, rest before your team Wait a minute, comes." hold up. I mean, just a fun young man, you can tell. Waa wiil dhalinyaro ah oo fiican, you can tell. Waad iska ogaan kartaa. Tani sidoo kale waa idiom, sideeda looma fasiro, you can tell. And being a mom, I knew he was tired. Hooyo ahaanna waan ogaa inuu daalnaa. Being a mom, hooyo ahaan. And I said, "Hey, why don't you go on upstairs and just take a little rest before we start the move?" Waxaan ku dhahay wax yar ma kor aadid oo aad soo nasatid ka hor intaan guuritaanka bilaabin. Upstairs hore usoo sharaxnay waxaa waye guriga haddii 2 dabaq u yahay oo kala qaybta sare waxaa loo yaqaanaa upstairs. And that way you can rest before your team comes. Sidaasna waa ku nasan kartaa intaysan kooxdaada imaanin ka hor. Wait a minute, hold up. Labadaba waa isku micno, waa sug. You tell this kid to go upstairs in your house in a bedroom and rest. You tell this kid to go on upstairs on your house in a bedroom and rest. Cunugana waxa u sheegtay inuu gurigaaga qaybta sare aado qolka jiifka oo uu nasto, yani wuu la yaaban yahay. I did, because I knew he had to be tired. And he said, "No, ma'am, I want to get started and help you guys move." Yeah. All right. I did because I knew he had to be tired. I did, yani haa waan ku dhahay ama waa u sheegay. Because I knew he had to be tired. Maxaa loo ogaa inuu daalnaa? And he said, "No, ma'am, I want to get started and help you guys move." Wuxuuna dhahay maya mar waxaa rabaa inaad bilaabo oo aan idinka caawiyo inaad guurtaan. Move sidoo kale guuritaan waa loo isticmaali karaa saa hore usoo sharaxnaba. So let's get to this part, folks. Luke Marklin, who happens to be the CEO of Bellhop Movers, was so impressed by Walter's determination that he wanted to personally thank him. Check it out. All right, so let's get to this part, folks. Folks, waa dad. All right, so let's get to this part, folks.
hagaag aan u imaano qaybtan dad yahow. Luke Marklin, who happens to be the CEO of Bellhop Movers. Luke Marklin oo ah maamulaha shirkadda Bellhop ee dadka ka caawisa inay guuraan. CEO waa maamule, waxaana laga soo gaabiyey Chief Executive Officer oo la micnaha maamule yani, was so impressed by Walter's determination. Ayaa aad ula dhacsanaa go'aankii Walter that he wanted to personally thank him. Ilaa heer uu rabay asiga shaqsiyan inuu u mahadceliyo. Check it out, fiiri ama daawo. He's got everything he needs to be a bellhop. The one piece he's missing is like a way to get there. So, this is my car. I'd like it to be your car. Serious? Thank you. Oh my God. He got everything he needs to be a bellhop. Wuxuu haystaa wax walba uu u baahan yahay si uu noqdo bellhop, yani soo shirkadda uga qayb noqdo. The one piece he's missing is a way to get there. Waxa kaliya ee ka dhiban waa qaabkii uu ku tagi lahaa halkaas. The one piece he's missing. Waxa kaliya ee ka maqan. So this is my car. I'd like it to be your car. Sidaa daraaddeed, kani waa gaarigayga. Waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo gaarigaaga. Seriously? Daacad miyay kaa tahay? Videogana maanta meeshaan uu ku egyahay. Nagala wadaag ra'yigiina qaybta commentiga. Haddii kugu dhici lahayd arrinta wiilkan ku dhacda Masamele tuu sameeyey. Ogowna 20 maal waxay dhigataa 32 kilomitir. Yani waa meel qiyaas ahaan loo lugeynayo 6 ilaa 8 saacadood. Haddii arrintaas ku qabsan lahayd Masamele wuxuu sameeyey mise waad iska cancel lahayd maalintaada koowaad shaqada. Haddii aad qaybta soo gaartay videoga aad u mahadsan tahay. Goolkeen waxaa waa inaan gaarno content-kii ka hor sanadka cusub. Fadlan u share gareys xataa jecel bartaa luqadda Englishka. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye.